xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland waxay maanta ka hadleen muwaadin reer Soomaaliland isla markaasina ganacsade oo ay sheegeen in xukuumadda Soomaaliland iyo Djibouti uu xiriir u socdo kaasi oo la doonayo gacanta lagu galiyo dawladda Djibouti xildhibaanadan ay ka mid ahaayeen xildhibaan Bashiir Tukaale iyo sidoo kale xildhibaan Axmed Maxamed Diriye Nacna waxa xildhibaanadan ay sheegeen in aan gacanta loo galin karin muwaadinkan ganacsada sidoo kale waxay dawladda Djibouti ay u soo jeediyeen inay faraha kala baxdo muwaadiniinta ganacsatada ee reer Soomaaliland waxaana xildhibaanadan hadalladoodii ka mid ahaa saaka waxaan jeclaystay inaan ka hadlo arin taagan oo ku socda muwaadin reer Soomaaliland ah muwaadinkaas oo ah Axmed Cismaan Geelle oo la sheegay in maxaan ku raadayay ay xukuumadda iyo Djibouti xiriir u socdo sidii loo gudbin lahaa Djibouti arintaasina wax ummadda reer Soomaaliland aqbalasa maaha Djibouti nama dhaxyaale xeer maxaan ku raadayay aan isku gudbino muwaadiniinta ama laga ganacsado maxaan ku raadayay human trafficking tani waxa weeyaan maxaan ku raadayay waa dambi waa fal weyn oo laga galay ummadda Soomaaliland cidii arinta ku kacdaana iyada oo kalkay geliso muwaadin reer Soomaaliland wax badan taray ummadana wax badan tarina doona marka muwaadiniinta reer Soomaaliland ee mudan in la ixtiraamo in ayr maxaan ku dhahay magacooga la soo hadal qaada taasaba dambiye iska dhaaf dhiibis iyo maxaan ku dhahay arin kale laga hadlay marka muwaadiniinta reer Soomaaliland waxaan leeyahay muwaadinka shaqo abuurka badan ummadeena u sameeyay ee shirkadda kaliya caalamiga ee dunida laga yaqaano keenay magaalada wadankeena oo ah Coca-Cola in maanta loo soo dhawaada waa ihaanad idinka la idinku sameeyo weeyaan Soomaaliland lagu sameeyay shacbigeega lagu sameeyay dhalinyarteeda lagu sameeyay marka muwaadinkaasi ha loo guntada si loo difaaci lahaa waxaan leenahay annagu Djibouti waxa naga dhaxeeyo oo la isku celiyaa ma jirto muwaadinka waa la soo dhacay waxa buu sheeganaya 120 milyan oo dollar buu sheeganaya ilaa dollar buu sheeganaya waa la dhacay isagoo ooyayay halkan yimi waa ninkii u horeeyay intii yareed la soo qaxay 20 milyan ee dollar buu galiyay warshada ku sameeyay warshadii waa booming waxa la ka shaqeeyay 2500 ayaa ka shaqeeyay qoys ba ka shaqeeyay Soomaaliland waxaan leenahay hiil walaal haduu joogo muqdisho soo qaban lahayd Hargeysa Macaasis Mukarramo kuwaan ayuu ku joogaa qof uu iman kara ma jiro Ilaahay uu iman kara waxaan leenahay Djibouti wixii aad noo geysateen waxba ha noogu darin faraan naga qaado baan leenahay oo muwaadiniinteeda marba aad nin soo shaabad ku soo dhufanaysan ama nin reer Djibouti oo noo soo dacwoodo noo qabta ninka ka yeelmayno waxaan leenahay Soomaaliland haddaan nahay baasaboor nagu xukumi maysaan baasaboorkiina doonmayno aragtidiina doonmayno wixiina doonmayno nidaay baan leenahay xildhibaan cali Cabbeesh oo mowqif adag ba xalay soo isaar beeshu ma beelma Somaliland ma ninkan wani Somaliland oo la dhacay oo la dhibay oo naftiisii la soo baxsaday ayaan leenahay noogu iman maysaan Hargeysa u iman maysaan waxba way naga dhaxayaan badde mar cali ducaale Umar Shabash telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Hargeysa